Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada one day working from home. Okay, marka maanta waxaan bilaabeynaa shaqo yar. Marka waxaa idiin soo duubi doonaa barnaamijyada aan guriga ku sameeyo ayaan maalinba video kusoo duubi doonaa. Marka xafiiskaas ayaan ku shaqeeyaa. Xafiiskaasi waa xafiiskayga guriga dhexdiisa weeyaan. Working from home waa important xilligan lagu jiro maanta. Marka hadda computerka ayaan setup gareynayaa. Computerka waan dhameeyay, shaqada ayaa bilaabatay, work started. Marka shaqada ka hor dhici maayo, shaqadan live ayaa u arki doontaan, natiijadeeda gadaal ayaa ka arki doontaan. Iyo waxay tahay waxay qusayso. Waana shaqo very important aad muhiimad u leh. Marka hadda shaqada ayaa noo socota, work is going, saacadu way socotaa, shaqaduna way socotaa. Okay, marka markastoo shaqo muhiimad ah guriga ku qabanaysid waxaa fiican ina xilli hore kacdid very early in the morning si sharqanta iyo waxyaalaha maskaxdaada qasi kara maskaxdaada jeedin kara focuskaaga inaad ka hortagtid. Marka hadda waa wax hore very early in the morning weeyaan. Wax sharqan iyo wax buuqa ma jiraan guriga. Okay, markastoo shaqo qabanaysid waxa fiican koob kafee inaad ku dhufatid. Inuu kafee waa ka helaa, aad baa uga helaa. Marka hadda kafee time ayaa la soo gaaray, kafee ayaa samaystay, koob kafee ayaan soo diyaarsaday. Maxaa yeelay focuskaaga ayuu kordhinayaa, caajiska ayuu ka ilaalinayaa, hurdada ayuu ka yareynayaa. Shaqadana si wanaagsan ayaa u qabanaysaa. Okay, coffee time is over. Shaqada ayaa lagu soo laabtay xafiiskii, shaqada ayaa meesha ka soconaysa. Okay, okay, shaqada ayaa sii socota. Shaqada sharaxaadeeda ayaan bilaabayaa. Shaqadan waxa weeyaan mobile app ayaa la sameynayaa. Marka makhaayadaan ka shaqeeyo cafe mocha la yiraahdo, website ayaan u sameeyay. Marka website-ka ayaa waxa loo bedelayaa mobile app maadaama dadka inta badan ay isticmaalaan smartphone. Marka website-ka ayaa waxa uu bedelayaa mobile app oo Play Store-ka iyo App Store-ka labadaba laga heli karo, laga soo download gareysan karo. Marka language-ka isticmaalaya waxa la dhahaa Dart language weeyaan, laakiin Flutter framework ayaa isticmaalaya. Okay, marka language waa Dart, Flutter ayaa isticmaalaya as a framework. Marka Flutter waxay ka caawinaysaa in Android app iyo maxaa la dhahaa iOS ama Apple labadaba hal mar aad soo gabagabeysid. Marka Play Store-ka iyo App Store-ka labadaba hal mar application-ka u wada delete, qof kale uu ku soo gareysan karo. Marka hadda shaqadii more hours oo shaqadan focuskeedu jiray hadda wax soo gabagabay, shaqada waa la dhameeyay. Waxaa haray in la test gareeyo. Okay, testiga ayaa dhamaaday, testiga ayaa bilaabanaya. Marka waa ka folderadii shaqada waa yarahay, code-ku wuu yaryahay maadaama Flutter ayaa isticmaalaya. Flutter waa framework, waxay ka caawinaysaa just a small code iyo shaqooyin badan qaban lahayd ayay soo koobaysaa. Language-kana waa Dart-na waa very easy language weeyaan, ma adka. Okay, wuu soo gabagabay. Final result ayaa hadda tijaabada ayaa la bilaabayaa inaan bal tijaabino. Okay, marka markastoo website u bedelaysa mobile app, first website ku yahay responsive waxa laga wadaa website-ku waa inuu yahay mobile friendly ama telefoonada waa inuu ku shaqeyn karaa, cabirka telefoonada waa inuu qaadan karaa. Okay, marka website-ka hadduu responsive ahayn, mobile app-kaagu wuxuu noqonayaa very bad. Yes, very bad. No one can use it, no one can understand it. Marka hadda website-ka responsive ayuu noo ahaa. Maxaa yeelay website responsive aan ahayn ma develop gareeyaba. Okay, hadda wuu soo kacay application-kii wakaas, mobile-ka ayuu soo galay. Hadda waa Android ayaan ku tijaabinaynaa. Hadda waka mobile-kii application caadi ayaa loogu isticmaali karaa. Qofku ma garanayo inuu website yahay, wuxuu u maleynayaa inuu application yahay. Sababtoo ah no difference. Marka user-ku ma dareemi karaan, wuxuu malaynayaa Android app inuu yahay. Marka hadda waxaan kicinayaa browser-ka ayaan kicinayaa. Website-ka ayaa waxaan ka tusayaa browser-ka si marka hore comparison ayaa isbarbardhig ayaan ku sameynaynaa ama comparison. Marka website-ka waa kaas marka hore saas uu ahaa. Browser-ka dadka desktop-ka isticmaala ama laptop-ka ayaa isticmaali karay. Hadeerna App Store-ka iyo Play Store-ka labadaba waa laga heli karaa.